Wararka laga helayo magaalada Muqdisho isla markaana galaangal ay la xiriirtay ayaa xaqiijinaya in ciidamada Soomaaliya ee booliisku ay gacanta ku dhigeen nin u dhashay waddankaasi Yemen isla markaana ku labisnaa dharka dumarka sidoo kalena soo xirtay qalabka ay naaguhu ku xirtaan xabadka isla markaana loo yaqaano rajastinka. Ninkan ayaa la sheegay inuu ka soo socdaalay magaalada Cadan ee dalkaasi Yemen isla markaana uu soo gaaray isbuucii hore magaalada Muqdisho, balse lama xaqiijin sababta uu ninkani u yimid halkani. Balse dad aan la xiriirnay ayaa noo xaqiijinaya inuu ninkani uga soo socdaalay dalka Yemen gabar uu jeclaa isla markaana lagu magacaabo Asli Cumar Warsame, isla markaana uu helay in gabadhaasi la siiyay nin kale aabaheedna uu ku xiray nin kale, balse jacaylka uu qaba dartiis ayuu u soo socdaalay halkaasi. Balse markii uu Muqdisho soo gaaray waxa uu suurageli weysay inuu gabadhaasi la kulmo, balse wuxuu ninkani ka shaqeeyay qaab kasta oo uu la kulmi lahaa gabadhaasi isla markaana wuxuu keenay inuu ku labisto dharka dumarka si uu ula kulmo gabadhaasi. Wararka qaar ayaa xaqiijinaya ninkan oo ku sugan gabadha gurigaasi ay ka degan tahay magaalada Muqdisho in uu maantay asagoo halkaasi kula sheekeysanaya uu aabaheed ka shakiyay gabadhaasi Asli ah in qofka la jooga uusan ahayn qof dumar ah, isla markaana wuxuu wacay lambarka booliiska ee 991 isla markaana waxaa goobta soo gaaray ciidamada booliiska federaalka Soomaaliya ayagoo guriga baaritaan ka sameeyay. Ninkana ku sameeyay baaritaan markii la baaray kadib waxaa la arkay ninkani inuu ku labisan yahay dharka dumarka uusan ahayn qof dumar ah balse uu ka yimid dalka Yemen. Ilaa hadda laamaha ammaanka kama aysan hadlin falkani ka dhacay magaalada Muqdisho maanta duhurnimadii, balse ila xog ogaala ayaa xaqiijinaya in ninkan loo taxaabay xabsiga ay degan yihiin ciidamada nabad sugidda ee lagu magacaabo Godka Jilcow, halkaasna uu caawa ku xiran yahay. Ma ahan markii ugu horeysay oo sidaan oo kale nin lagu qabto magaalada Muqdisho isagoo ku labisan dharka dumarka, balse waa markii ugu horeysay ee gudaha Soomaaliya lagu qabto qof ajnabi ah isla markaana ku labisan dharka dumarka. Wararka qaar waxay sheegayaan in ciidamada booliisku raadraac ku sameynayaan qaybta aeroboorka ee uu ka soo degay ninkani iyo meelaha uu ka yimid, balse waxaa ninkan ilaa hadda gacanta lagu soo dhigin baasabooradiisii iyo sharciyadii uu ku socdaalayay ee uga yimid dalka Yemen. Magaalada Muqdisho waxaa waayadan isa soo tarayay dadka ku labisan dharka dumarka isla markaana aan ahayn qof dumar ah. Magaalada Muqdisho waxaa sidoo kale maanta ka dhacay weeraro hoobiyaal oo lagu garaacay xarunta madaxtooyada, waana arrinta shakiga keentay ninkani in la soo qabto isla markaana booliisku ay ilaa hadda baarayaan. Dalka Yemen oo ninkan u dhashay ayaa waxaa ka socda dagaal aad u culus oo u dhexeeya Xuutiyiinta iyo dowladda Sacuudiga iyo xulafada ay hogaaminayso, balse ila xog ogaala oo ay heshay Galaangal Media ayaa waxay sheegayaan in dowladda Soomaaliya la xiriirtay dalka Yemen safiirkooda ku sugan magaalada Muqdisho isla markaana ay ninkani wax ka weydiin doonto maalmaha soo socda. Ilaalada sidoo kale Godka Jilcow ayaa sheegaya in ninkani lagu arkay waxyaalo anshax xumo ah oo sidoo kale uu ka dhex waday magaalada Muqdisho, waa sida ay xaqiijiyeen baaritaano horudhaca oo laga sameeyay magaalada Muqdisho markii ninkani la soo qabtay. Balse dadka qaar ayaa waxay weli leeyihiin ninkani waxaa la socday koox kale oo sidoo kale ku labisan dharka dumarka, waxaana suuragal ah inay kooxdani xiriir hoose la leeyihiin kooxda Daacish ee ku sugan gudaha Soomaaliya isla markaana ka fulisa gobolada bari howlgallo. Macadda sida baaritaankani ku soo dhamaan doono, balse Galaangal Media waxay idin xaqiijinaysaa wax allaale wixii ka soo kordha inaan idinla wadaagno, balse aan halkan kugu soo gudbi doono insha Allah. Fadlan haddii aad ku cusub tahay channelka Galaangal Media subscribe saaro si aad ula socoto xogihii ugu dambeeyay ee gudaha iyo dibaddaba.